التعب هو الطريق للنجاح وللراحة. من يتعب في نهاره يرتاح في ليله. واللي بيقول لك اني انا بدي ارتاح، بدك ترتاح اتعب. wuxuu ku suman yahay cadaawada kala dhaxaysa raaxada waxayna u tahay shaqadu cishqiga aan marnaba ka dheeraan qalbigiisa halka guushu ay tahay midaan ka fogaan garabkiisa. wuxuu ka soo baxay guri sabool, wuxuu ahaa qaxooti dalkiisii hooyo gumayste ka soo qaxiyey. dalkii uu nafla caariga ku yimidna kama helin noloshii uu ku taamayey. qaxootinimadiisu waxay ahayd mid ka xirtay albaabo badan oo ay jaamacaddu ugu horeysay, laakiin maanta waa milkiilaha shirkad 107 dowladood ka howlgasha. sidoo kalena wuxuu ka mid yahay shakhsiyaadka naadirka ah ee ugu saamaynta badan bariga dhexe. noloshiisii saboolnimada, qaxa iyo ka dheeraanta ehelkiisu sumadda u ahayd kama dhigin mid ka rajo dhiga nolosha, iskuna dhiiba mawjadaha arxanka daran ee ay leeyihiin duruufaha adduunkani. muuqaalkeenna maanta daawadayaal waxaan ku soo qaadanaynaa sheeko lagu tiriyo sheekooyinka guuleed ee ugu xiisaha badan, sheekada qaxootigii falastiiniga ahaa ee magaciisa ku xardhay baalasha hore ee guusha, Dalaal Abu Ghazaala. magacaygu waa Cabdiraxmaan Cumar, halkanina oo Abari Media. ku soo dhawaada daawadayaal muuqaalkeenna maanta. Dalaal Abu Ghazaala sanadkii 1938 ayuu ku dhashay magaalada Yaafa ee dhacda dalka Falastiin. Dalaal nasiibku uma qorin inuu ku sii nagaado magaaladii uu ku dhashay. sanadkii 1948 waxay u boqoleen reerkiisu tuulada Qaaziyah ee dalka Lubnaan, taasoo 2 saac u jirta magaalo xeebeedka Sayda. Abu Ghazaala markiiba wuxuu bilaabay waxbarashadii iskool, isagoo magaalada Sayda wax ka baran jiray. wuxuuna maalin walba socon jiray 2 saac si uu u gaaro iskoolka. roobabka, dhaxanta iyo qoraxduna ma ahayn kuwo hakiya inankan hamiga weyn xambaarsanaa. kadib markii uu dhameeyey waxbarashadii iskoolka, nasiib uma yeelan inuu ku biiro jaamacadihii dalka uu ku noolaa ee Lubnaan qaxootinimadiisa awgeed. laakiin Abu Ghazaala wuxuu noqday imtixaankii iskoolka sare ardaygii ugu sareeyay dalka Lubnaan, taasoo ka dhigtay mid ku guuleysta halkii minxo ee ay dawladdu ugu talagashay ardayga ugu sareeya dalka. wuxuuna sidaasi ugu biiray Abu Ghazaala jaamacadda Mareykanka faraceeda Beirut. Dalaal oo ka sheekeynaya xilligiisii jaamacadeed wuxuu sheegaa in jaamacaddu ay siin jirtay 3 waqti oo cunto ah, mar walbana cuntada waxaa loo raacin jiray khudaar sida tufaax iyo moos. wuxuu sheegaa inuu aroorin jiray maalin walba khudaarta la socota cuntada si marka uu isbuucu dhammaado uu ugu qaado walaalihii la dhashay si ay u wada cunaan, maadaama aysan awoodi jirin inay iibsadaan. Abu Ghazaala ardaynimadu kama reebin inuu shaqaysto, wuxuuna ka shaqayn jiray gelinka uu fasaxa yahay macallinnimo, isagoo qaadan jiray mushaar aad u yar, laakiin reerka saboolka ah ee uu ka soo jeedo uu ahayd mid aad u badan. markii uu ka qalin jabiyey jaamacadda, nasiib uma yeelan inuu helo shaqadii uu ku taamayey. wuxuuna sheegay in ka badan 100 jeer laga diiday codsiyo shaqo oo uu gudbisaday, laakiin Ghazaala diidmooyinkaasi kama dhigin mid ka niyad jaba helidda shaqo uu ka soo saaro nolol maalmeedka reerkooda. halkii uu guriga ka fariisan lahaa isagoo ku andacoonaya in nasiibku albaab walba ka soo xiray, ayuu go'aansaday inuu si bilaasha ku shaqeeyo si uu khibrad dheeri ah u kasbado, sidoo kalena uu isku tuso milkiilayaasha shirkadaha inuu u qalmo in la shaqaalaysiiyo. waana tan uu ku guulaystay isagoo ka howlgalay shirkadda Fatir, waxayna ahayd lacagtii ugu badnayd ee uu qaato xilligaasi, 500 geni oo ah lacagta Masar, isagoo ku mutaystay sheeko uu curinteeda lahaa sanadkii 1958. Abu Ghazaala abaalmarintaasi kama dhigin mid ku sii nagaada curinta sheekooyinka yaryar, isagoo sanadkii 1972 yagleelay 2 shirkadood oo ugu magacdaray magaciisa, taasoo hawsheedu ahayd talasiinta ganacsatada iyo ka caawinta arrimaha dhaqaalaha. laakiin nasiib darro dagaalkii Ciraaq ay ku qaaday dalka Kuwait awgeed waxaa laga xiray Ghazaala shirkadiisii oo xilligaasi ku taalay dalka Kuwait. sidoo kalena waxaa laga xayiray dhammaan lacagtiisii u taalay dalkaasi, taasoo ka dhigtay Abu Ghazaala mid dib ugu soo hayaama dalkii uu ku barbaaray ee Lubnaan. wuxuuna go'aansaday inuu dib u yagleelo shirkadiisii, waana tan uu ku guulaystay. Dalaal wuxuu sheegaa in bilowgii shirkadiisa uu shaqaalihiisa kula shiri jiray gadaasha dambe ee gaarigiisa,
maadaama uusan awood u lahayn xilligaasi furashada xafiis ay ku shiraan kana maamulaan shirkadda. يوم من الأيام أنا واقف على الرصيف أنا وزملائي وفاتحين صندوق السيارة وفي الملفات والأوراق. قال شو عم تعملوا؟ قلنا له بالمكتب إحنا. قال لي كيف يا عم؟ قلت له هذا مكتبنا. Dalaal Abu Ghazala maanta waa milkiilaha shirkad ka mid ah shirkadaha Carbeed kuwooda ugu baaxadda weyn. Waxay u kala baxdaa laba qaybood oo kala ah shirkadda ilaalinta xuquuqda fikradeed iyo shirkadda Abu Ghazala ee la talinta iyo xisaabaadka. Shirkaddani oo aan kor ku soo xusnay in bilowgeedii uu gadaasha dambe ee gaariga Abu Ghazala uu ahaa xafiis, maanta waxay leedahay 150 xafiis oo ku kala yaala dhammaan daafaha adduunka. Sidoo kale waxaa ka howlgala in ka badan 2,000 oo shaqaale oo ku kala sugan 72 dowladood oo kala duwan. Halka Abu Ghazala uu yahay maanta gudoomiye ku-xigeenka qaramada midoobay u qaabilsan isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada. Sidoo kale wuxuu gudoomiye ka yahay shirkado dhowr ah oo badankoodu isagu leeyahay. Abu Ghazala ma ahan shakhsi magaciisu uu ku koobmay dalalka Carbeed oo keliya, balse sidoo kale wuxuu saameyn ku yeeshay adduunka oo dhan, isagoo shirkadiisu ay noqotay mid ka mid ah shirkadaha la talineed kuwooda ugu waaweyn Yurub iyo Galbeedkaba. Ghazala wuxuu ku soo koray guri sabool oo ay adkayd inuu helo wuxuu cuno 3 gelin. Waxa uu dheereed in dhulkiisii hooyo uu uga qaxay yaraantiisiiba gumaysi daraaddii. Dalkii ay miciinka bideenna wuxuu kala kulmay soocid iyo fuquuq u diiday inuu ka shaqaysto ama uu ka galo jaamacadba, laakiin dadaalkiisii baaxadda weynaa iyo naftiisii diiday nasashada ilaa ay ka gaarto fiinta sare ee guusha ayaa ka dhigtay mid u babacdhigta duruufahaasi. Wuxuu ku guulaystay yaraantiisiiba inuu galo jaamacad isagoo qaxooti ah, haddana jaamacadda uu galay ay ahayd mid minxa ah oo uu si bilaasha ku dhiganayay. Dabcan marka laga yimaado inay ahayd jaamacaddii ugu tayada saraysay dalka Lubnaan xilligaasi. Markii uu weynaadayna wuxuu ku xardhay magaciisa baalasha guusha. Abu Ghazala oo caan ku ahaa shaqadiisa badan waxaa laga hayaa oraah ahayd ma awoodi kartid inaad ku raaxaysatid hurdadaada habeenkii haddii aadan ahayn mid ku soo daalay shaqadiisa maalintii.